waa nin macallin ah. Si fudud ayuu caan ku noqday, hanti badanna ku helay, farsamo yar oo aadan rumaysan doonin inay sabab u ahayd guusha macallinkan. Alexander waa macallin xisaabeed ka shaqayn jiray iskuul. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa uu sawiray goobo ama circle dhammaystiran oo aan wax qallooca lahayn, isagoo ku sawiraya gacmihiisa oo keliya, wax qalab ahna aan adeegsanaynin. Arrintani waxay soo jiidatay ardaydii dugsiga. In yar kadibna ardaydii ayaa ka duubay muuqaal macallinkii oo sawiraya goobadii, dabadeedna waxaa la soo dhigay YouTube-ka, halkaasoo lagu daawaday 100,000 oo jeer ama 100,000 oo fiisa. Maalmo kooban gudahooda haddadan waxa uu marayaa muuqaalkii 36 milyan oo daawasho ah. Ninkii macallinka ahaa waxa uu noqday xidig waqti yar gudihiisa, halkaasoo lagu waraystay TV-yada ugu caansan adduunka waqtigaasi. Waxa uu arrintani ka helay hanti badan. Macallinkani waxa uu sheegay inuu ku tababaran jiray sawirista goobada 200 oo jeer maalin kasta, halkaas oo uu qaldi jiray inta badan 10 jeer oo keliyata ayay u hagaagi jirtay ama u saxmi jirtay. Ninkan kale magaciisu waa Mike Shake, waa YouTuber haysta 2.2 milyan oo subscribers ah. Wuxuuna isku dayay isla goobadaasi inuu sawiro sida ugu saxsan ama sidii Alexander oo kaleeto. waxa uu practice gareynayay ama ku celcelinayay muddo gaaraysa 6 saac iyo 40 daqiiqo. aakhirkana waxa uu keenayaa sidii ugu saxsanayd. sidoo kale channelkiisa waxa ku jira 120 xirfadood oo uu bartay. waxa xirfadahaasi kamid ah inuu si xawaare leh uu computerka wax ugu qoro, isagoo halkii daqiiqo ku qoray 95 eray. taasina waxay ku timid ku celcelis. sidoo kale waxa uu baranayaa backflip ama gadaal isku roga qofka oo taagan. waxa uuna ku bartay 24 saac gudahood. la iskama baranayay dhaawac badan iyo fashil badan ayaa ka soo gaaraya, aakhirkiisana waa uu ku guuleysanaya. aad iyo aad ayuu badan yahay xirfadaha uu bartay, waxaana dhammaan wadada uu marayay sida uu ku baranayo uguna celcelinaya ka daawan kartaa channelkiisa Mike Shake. sidoo kale xirfadaha yaryar ee uu bartay ee channelka ka heli kara waxaa kamid ah sida qufulka siliga loogu furo, sida kubadda farta loogu wareejiyo, sida tinta la isugu jaro iyo kuwa kale oo fara badan oo cajiib ah. muhiimadda barnaamijku waa ku celcelinta iyo joogteynta. haddii aad rabtid inaad wax xariif ku noqotid ama professional ku noqotid, waa inaad si kaliya laaba u practice garaysaa ama ugu celcelisaa. waxaa laga yaabaa inaad istiraahdid waqti uma hayo, laakiin shay si aad u baratid kaliya xitaa maalintii dhowr daqiiqo haddaa samaysid kugu filan oo aad joogtaysid muddo sanada ah, shaygaasi waxaa ku noqonaysaa professional. waqti badan haddaa heli kartidna kaba sii fiican, waxayna kugu qaadanaysaa bilo si aad wax xariif ugu noqotid. iskana ilaali natiijada degdega in aad sugtid ama inaad raadisid inaad si degdega ku gaadhid waxa u baahneed ama xirfadii u baahneed. su'aal: maxaa doonaysaa inaad xariif ku noqotid ama professional?